بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta waxaan ka hadli doonaa alxayaa, xishoodka ka faa'iidaysi wacan. هلا مرحبا يا كرام الوجوه لكم تزدهي أحرف. xayaa haddii aan qeexno xishood waxa uu yahay in uu qofku ka xishoodo, kana dhowrsado, iskana ilaaliyo waxa isaga ceebeynaya. xayaa waxaa laga soo qaatay xayaat, oo xishoodka waxaa laga soo qaatay nolol, waayo qofku inta uu xishoonayo unbuu nool yahay. haddii xishoodkuu ka tago, qof dhintay wax ma dhaamo. rag aftahana waxa ay yidhaahdeen xayaatul wajh, wejiga noloshiisu waxa ay ku jirtaa bixayaa'ihi, xishoodkiisay ku jirtaa. sida tusaale ay soo qaadanayaan, sida geedka noloshiisu ay ku xidhan tahay biyaha. rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu xayaadka ka yidhi, xayaa iimaanku waxa uu yahay 60 qaybood, xayaa'una waa qayb ka mid a. rasuulku sala allahu calayhi wasalam sidoo kale waxa uu yidhi, inna likulli diinin khuluq, diin kasta dhaqan bay leedahay. wa khuluq alislaam alxayaa, dhaqanka islaamku uu faafinayaana, uu keenayaana, uu waajibinayaana waa xishood. rasuulku sala allahu calayhi wasalam sidoo kale waxa uu leeyahay, alxayaau waaliimaan quranaa, xayaau, xishoodku iyo iimaanku way isla socdaan. idaa rafica axaduhumaa rufica alaakhar, haddii mid la qaado ka kalena uu raacaya. sidoo kale rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi, maa kaana alfuxshu fi shayin ilaa shaanahu wamaa kaana alxayaau fi shayin ilaa zaanahu. fuxshiga ma foolxumadu iyo xishood la-aantu shay kuma jirto shay ilaa iyo way fool xumaysaa. wamaa kaana alxayaau fi shayin, xishoodku shay kuma jiro ilaa zaanahu, ilaa iyo uu qurxiyaa maahin. rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaana ka wariyey ibni cumar radia allahu canhuma, in uu nin ku waaninayay walaalkii xishoodka. rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam uu maqlayay markaa, wuxuuna ku yidhi, dachu, iska daa, falxayaau min aliimaan. xayaau ama xishoodku waxa uu ka mid yahay iimaanka. ilaahay waxa uu ku leeyahay nebi ciise, wuuna usoo waxyoonaya, wuuna ku leeyahay, cid nafsak, adigu horta naftaada waani. marka adigu naftaada waaniso, haddii aad waanin weydo naftaada, iga xisho inaad dadka waaniso. waa sida muxuu ahaa aan nidhaahno, yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun, maxaad u odhanaysiin waxaanad samaynin. 5 calaamadood ayaa shaqwada ama dhibaatada keena. ta koobaad, qalbi adayg. 2, isha oo dar ilaahay ama shay kale u ooyi weyda, dar ilaahay u ooyi weyda. 3, xishood la-aan. 4, waxay tahay in uu qofku didilada dheeraysto, ilaa iyo uu yidhaahdo waxaan noolaan karaa 100 adduunya jacayl. waa 5taas. xayaa ama xishoodku waxa uu ku jiraa qofka bini aadanka fitradiisa ilaahay uu ku abuuray ay ka mid tahay. waxayna tahay fitrat allahi alatii khalaqa annaasa calayha, fitrada uu ilaahay ku abuuray insaanka ay ka mid tahay. oo aayadda waxaa loo soo daliishanayaa markii nebi aadam iyo xaawa ay geedkii uu ilaahay u diiday ay cuneen, uu ibliis uu u faanfaaniyo, u qurxiyey. geedkii markay cuneen ay cawradoodii muuqatay. haddayna xishood lahayn bay culimadu leeyihiin
oonu xishoodku fitrada bini aadamka auna ku jirin dee geedahan iskumayna qariyeen oo geeda ayay isku qariyeen markii ay jirkoogii arkeen oo markii hore jirkoogii ma arkaynin oo dharkii jannaday xidhnaayeen markii geedkii cuneenna dharkii jannada uu ka baxay dhar kalaa xidhmay dharkii baa ka baxay qaawanaan bay noqdeen haddii qof walba markuu cawradiisii arkay wuu isqariyay marka waxay ka mid tahay fitrada insaanka in uu xishoodo marka haddaan islaam nahay haddaan muslim nahay waxa ay tahay in aan diinteenna aan qurxino oo aan xishood u yeelno waana shay muhiima inuu qofku xishoodo shay ceebana maaha waayo qofku hadduu xishoon waayo qof dhintay ayuu la mid yahay وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم